midnimo oo ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada isla markaasina ay ku midoobeen hablaha gobolka Togdheer ee qurba joogta ah ayaa shahaado sharaf ku maamusay agaasimaha isbitaalka guud ee Burco Dr. Cabdi Suudi Ibraahim taasi oo ay sheegeen inuu ku mutaystay doorka waxqabad ee uu ka geystay kor u qaadida adeegyada caafimaadka ee isbitaalka iyo dayactirka iyo sidoo kale dhismayaasha cusub ee uu ku soo kordhiyay haddaba kulankan shahaado sharafta lagu guddoonsiinayay agaasimaha isbitaalka guud ee Burco oo ka qabsoomay xarunta maamulka ee gobolka Togdheer ayaa waxa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta gobolka Togdheer xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Burco mas'uuliyiin ka socday jaamacadaha gobolka saraakiil ka tirsan bahda caafimaadka xubno ka socday ururka hablaha ee midnimo agaasimaha isbitaalka Burco iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa madashani ka hadlay Dr. Muuse Baaxeer oo ku hadlayay afka isbitaalka guud ee Burco wuxuuna ka warbixiyay kaalinta uu bulshada Burco isbitaalku ugu jiro iyo adeegyada ay bulshada u qabtaan Dr. Cabdi Suudi runtii wuxuu yimi nin walba uu og yahay xaaladii uu ugu yimi hospitaalka Burco oo ahaa in uu 6 bilood ama 7 bilood aan shaqaaluhu mushaar qaadan iyadoo aad iyo aad dhinac walba uu ka burbursan yahay haday dhismo tahay haday shaqaale tahay iyo adeeg bulshada haday tahayba wuxuu muujiyay karti dhalinyaranimo wuxuu muujiyay dadaal aad iyo aad u xoogan isagoo qoranama ah team wanaagsan oo helay oo haduu yahay team kan la shaqeynaya maatroomka iyo agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo hodhan intaasi dhalinyarada isu ururtay ee uu isaga hogaaminayay waxay muujiyeen karti wanaagsan waxay muujiyeen wax qabad muuqda hospitaalka maanta alxamdulillah wuxuu maray halkiisii ugu wanaagsanaa mushaharada 8 bisha la helayo shaqaale wanaagsan oo waqtigooda ilaashanaya beeshinkii oo loo shaqeynayo geesta kale waxa madashani shahaado sharafta uu ku maamusayay ururka midnimo agaasimaha isbitaalka guud ee Burco hadalka iska daba qaatay xildhibaan Shiina Faliid gudoomiyaha jaamacadda Alfa ee gobolka Togdheer Professor Cabdiqani Ibraahim xubno kamid ah qurba joogta gobolka saraakiil ka socday bahda caafimaadka iyo marti sharaf kale kuwaasi oo ku tilmaamay agaasimaha isbitaalka guud ee Burco shakhsi hawlkar ah wax badan ka qabtay adeegyada dhanka caafimaadka ee isbitaalka guud dhakhtarku marbu ahaa aan laba tagi jirin oo qofka tagaana loorintii qofkaasi aboo ku dhintaan waxbuu ku noqday iska soo celiya maantana waqti looma kala hayo marka tagtidee aniga maalin dhawto far dib iga qaleen de saacado dhan sugayo lahaa qofka ka horeeya qofka ka horeeya waliba si wacan u shaqeynay qoladii shaqeynaysa shaqaalaha aad ugu maateen marka waxay muujinaysaa inuu qofka bini'aadanka haduu wax bedel uu wax bedeli karo waxna agaasimaha caafimaadka waan la shaqeyn doonaa inta in ka badan baan la shaqeyn doonaa kulligeena maxaynu soo wada qabsanaynaa waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaynu soo wada calool xaadnaano araggiisa imka ugu horeysa waxa kale oo ilaahay ugu ogyahay ninka amaantiisa iyo wax qabadkiisu in badan bay soo gaaraysaa haddaan anagu ka caafimaadka bahda caafimaadka nahay cabdi isbitaalka intuu noogu yimi isbedel ma la kulanay anigu qaybta waadaydo kale nutrition officerka gobolka nahay marka qayb baan kala shaqeeyaa leeyado qaybta hotel isbitaalka waadayd oo kale shaqaaluhu deesu doonaa naga yeeri jiray markaan nimaadno maanta wuxuu noqday isbitaal dhisan runtii kale maanta waa sharaf in halka ka soo qayb galo agaasimaha cusaalka Cabdi Suudi oo ah runtii inuu doctor dhalinyarada saaxiib nahay oo lagu xusayo runtii wax qabadkii uu qabtay dunida runtii waxa ku qaalisan in qofka la yiraahdo waa mahadsan tahay oo waxa la qabtay waxa qabtay agaasimayaal badan baa soo maray way ku guuleysan waayeen inay dib u soo celiyaan oo halkii ay hay'adu keentay ay soo gaarsiiyaan isagu wuxuu keenay halkii intuu ka qaaday inuu dhaafiyay Xaliimo Xuseen oo kamid ah ururka hablaha qurba joogta ee midnimo oo munaasabadani ka hadashay ayaa sheegtay in Dr. Cabdi Suudi shahaado sharaftani ay ugu maamuseen kaalinta waxqabad ee uu ka geystay waxqabadka isbitaalka guud ee Burco isagoo dhankiisa agaasimaha isbitaalka guud ee Burco Dr. Cabdi Suudi Ibraahim uu uga mahadnaqay ururka midnimo sida ay u maamuseen had iyo jeerna ay uga shaqeeyaan arrimaha bulshada anoo dhoofaya baan dhakhtarka soo hormaro waan istaagay saasan soo hortaagay yani baarkinkiisa gaarigayga intaan baarkiinayaan gudaha galay cid lamaan hadlin waxa weeyaan qofka bini'aadanka wax qabta wuxuu inaga mudaya in la yiraahdo at least waxba siin mayno waynu isgaranaynaa thank you very much wad mahadsantii waxba adii qabatay ilmaha aad iyo aad marta ugu mahadnaqaya marka koobaad ururka midnimo ee maanta halkan ugu shafray hadaan nahay baad caafimaadka shahaadadan maanta la siinay ma aha mid aan kaliya leeyahay laakiin waa mid ay leedahay bulshada reer Togdheer oo dhan gaar ahaan baad caafimaadka waayo waxa maanu qabaneen haddaan dhammaantii aanu wada shaqayn
gudoomiyaha gobolka togdheer xamse maxamed cabdi oo madashani ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay in la xuso lana abaal mariyo cid kasta oo ka soo baxday shaqada ay bulshada u hayso. laba example ama laba tusaale oo aad iyo aad u wanaagsan. tusaalaha koowaad oo ah qof shaqadii loo diray ee qaranka u yigmaday ee uu mujtamaca u hayay ka soo baxay iyo bulshadii shaqada loo qabtay oo u markhaati furaysa qofkaas oo shaqadii lagu diray waad ka soo baxday. waa laba tusaale oo aad iyo aad u wanaagsan. waxay muujinaysaa runtii calool fayoobaanta, qalbi wanaagga, isku kalsoonaanta iyo isku tiirsanaanta maanta bulshadeena reer Togdheer dhexdeeda taala. ugu dambeyn ururka midnimo ee hablaha qurba joogta ah ee gobolka Togdheer ayaa gudoonsiiyay Dr. Cabdi Suudi Ibrahim shahaado sharaftani ay ku maamuuseen waa fahmi kaysa xirsi Bulsha TV Burco.